kulligeen inoo tahay inaynu shirkan ka soo qayb galno qaaliga oo ay kula kala wareegayaan xilka wasiirkii hore Cabdullaahi Dheere oo aanu 26 sanadood ama 25 sanadood soo wada shaqaynaynay iyo Yaasiin oo 1993 wasiirkii ugu horeeyay Boorame loo magacaabay ahaa wasaaradda caafimaadka maalintaa wuxuu aniga igu yimid Laascaanood Yaasiino wuxuu igu yiri waxaan rabaa inaad xildhibaan noqoto isagoo xaajiyad saaran buu ii yimid laamiga Laascaanood si kastaba ha noqotee wixii maalintaa ka dambeeyay isagana waanu wada shaqaynayn aad iyo aad baan u garan karayaa wasaaradani horumarka ay samaysay ninkii joogay baa garanaya ninkii joogay ayuunbaa garanaya dee nin qurba joogi marka uu Jarmal iskuulo uu ku arkay indhaha ku dhufto iyo halkan wixii ka jiray daasadii caana booraha ahaa iyo maanta meesha la marayo wuxuu garanayaa in dadku wax qabteen in bil aadanku dadkan jooga aanay fadhiine ay wax qabteen iyadoo ay jiraan challenges badan oo dadka hor imaanayay oo aan runtii markaa awood loo hayn laakiin haddii challenges waxaan isleeyahay waxa ugu badnaa dhaqaalaha iyo human resources oo iyaguna u baahnaa in dib loo dhaqaajiyo laakiin waxaan qiraynaa wasaaradda waxbarashada oo maanta halkan taagan oo aan buuggan akhriyay hadda in dadka wasaaradda waxbarashada iyo xukuumadihii kala dambeeyayba ay soo qabteen wax badan oo la taaban karo waxaan leeyahay wasiirku aniguba hadda wasaarad baa la geeyay wasiir horena waan ahaan jiray jagooyin badan baa soo qabtay waxaan qiyaasi karayaa inaan qofka markaa head of institutionskaasi waxa weeye in uu la yimaado inuu bilaadanka maskaxdiisa ka shaqaysiiyo waxa ugu weyn haddii ninkaa uu mas-uulkii garto inuu bilaadanka maskaxdooda intuu jamciyo ka shaqeeyo oo dabadeedna la qaato wado inta ugu badan ee mas-uulka looga baahan yahay iyo inuu wixii la isla qaatay uu control karo oran karo war maxay sidaa waxaynu isla qaadanay halkaas ay ka baydhay inta looga baahan yahay waa inta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan halka joogo nin baa yidhi in askari la keeno maaha aniga madaxweynuhu baa askari baanu aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guud ahaan waana fiican aad iyo aad baan u fiican